Soomaaliya Baashe Yuusuf ayaa VOA-da u sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan dhageysiga dacwadda xisbiga himilo qaran uu u soo gudbiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Baashe ayaa ku dooday in maxkamadda sare ay tahay mid madax bannaan oo dacwad qaadi karta isla markaana aanay jirin cid u yeerin karta go'aamada ay maxkamaddu gaari doonto. Cabdixakiin Shirwac ayaa wareystay gudoomiye Baashe Yuusuf mar uu shalay nagu soo booqday xarunta VOA-da wuxuuna ugu horeyn weydiiyay wuxuu safarkiisa Washington ku saabsan yahay. runtii safarka noo yimid wuxuu ahaa safar shaqo waxa ka soo qayb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomay xarunta bangiga adduunka oo la yiraahdo toddobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka. shirkaas baan runtii ka soo qayb galay. shirku waxa weeye waa shir sanadla ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018 inta badan waxa ka soo qayb gala maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaaladda xafiisyada xeeraalinta iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii ka soo qayb gala. marka kulankaas baan u in dhawaan Kismaayo xaalad baa ka taagneyd xaaladda ka taagneyd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qaarkood waa la garoonka lagu hor istaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi ka mid ah xisbiyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif uu hogaamiyay dacwad bidii soo gudbiyay taasoo kale maxaad ka yeeshay waa ruuye waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi ka mid ah xisbiyadu oo dacwad soo gudbiyay maxkamadda sare. dacwaduna marka cid soo gudbiso waxay martaa hab bay martaa marka qof soo dacwado dacwada oo qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay mudayso dacwadaasi dhageysigeedii. dacwadaasi dabcan waxa soo gudbiyay xisbiga himilo qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay'adda dawladmaadka rayidka ah. dabcan dacwadii maxkamadduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxa hadda hadsan dhageysigeedii. waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha Allah ta'ala ay maxkamaddu dhageysan doonto. waan gartay in waad tilmaantay in haatan kanaada procedure-ka ama nidaamka sharciga aad mariseen in horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay ama hay'adda garsoorka hay'ad loo soo dacwoodo laakiin guddiga garsoorka marka intaanu iman salahan oo kale adigoo kale xiliyada qaar waxa jirta dood odhanaysa waa gudoomiye maxkamadda sare madaxweynihii baa soo magacaabaya dadka qaar su'aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo waliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysaa horta inta adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira maraykankan aynu joognana ku daro gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxa soo magacaaba madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay processka la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso ayuunbaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meelaanu madaxweynuhu soo magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxa filayn in aad u yartay. waan gartay su'aal kale dankaasi weydiiyo taa cadaalad oo kale in marka laga yimaado in gudoomiye maxkamadda sare joogo dabcan maxkamadihii jiraan gudoomiyaal maxkamadda jiro garsoorayaal jiraan waxyadana lagama maarmaan guddiga cadaaladdu inay jirto oo dabcan guddi go'aankii gaaraysa kiisaskii eegaysa dabcan garsoorayaashan iyo ciidan cadaaladda gacanta ku haysanaa shaxmarintooda iyo abaalmarintooda wuxuu uga dhan gacanta ku haysan guddida ma la yagleelay si muhiimadeedii maanay muuqan. guddidaas horta waxa weeye guddi runtii aad iyo aad ugu muhiim ah guud ahaan garsoorka iyo dib u dhiskiisa iyo madax bannaanidiisa intaba waa guddi aanu garsoorku u hana qaadi karin sida la rabo inuu hana qaado haddii aan la helin weli guddidaasi ma jirto laakiin hawsheedii waa socotaa waxaana ku rajo weynahay waqti dhow insha Allah ta'ala inay dhammaan doonto. madax bannaanida haddaynu eegno dabcan siyaasadda ma istaagaysa way soconaysaa gudoomiyaasha xisbiyada hadday noqoto iyo xubnihi kale siyaasiyiintii mucaaridka way cabanayaan dooda inta ay imanaya waxaad leedahay markaa waan madax bannaanahay oo maanta go'aanadii iyo garsoorkii maxkamadda sare iyadoon xukuumaddii waxba saameyn ku yeelan bay go'aan gaari kartaa 100% runtii garsoorka waxaana lagu dhaariyay oo ku dhaaranay inaan ku shaqeyno sharciga oo kaliya inaanu dacwadaha u dhageysano si aan cabsi lahayn anagoon cidna ka cabsanayn isla markaana anagoon cidna u danaynayn oo ummadii cidii isdacweynaysay ama ha noqoto arrin siyaasadeed ama ha noqoto arrin maamul ama ha noqoto arrin ciqaab ama ha noqoto arrin madani inaanu si dhex ah
oo hufan aan u dhageyso dabcan tan ummadda u damaanad qaadayna u ballan qaadayna waxa weeye waa taas weeye waa dhaxdhaxaadnimo mana jirto cid noo yeelin karta go'aamada aanu gaadhayna iyo sida aanu u gaadhayn waan sharciga ahayn